Horey ayaa Turkigu u soo gabagabeeyay dhismaha darbiga amniga ee xuduudda uu la wadaaga dalka Iiraan iyadoo la fulinayay mashruuca ay madaxtooyada Turkiga bilowday si loo sugo xuduudda amniga. Saraakiisha iyo ciidamada Turkiga ayaa ilaalo ka haya xuduudda Turkiga uu la wadaaga Iiraan iyadoo aysan jirin meel ay ka soo galaan argagixisada iyo mukhallasiinta. Ilaaladan heerka sare ayaa loo isticmaalayaa kaamiradaha ilaalada elektarooniga iyo nidaamyada dhawaaqa ee ku rakiban darbiga. qalabkan cusub ayaa awoodda ciidamada qalabka sida ee Turkiga kor u qaaday si loo xakameeyo amniga gobolada xuduudda Turkiga iyo Iiraan sida Igdir iyo Agribari iyadoo la taageerayo agaasinka guud ee maamulka gobolada xuduudaha. kaamirooyinka BTZ ee lagu rakibay xuduudda Iiraan oo leh wareeg 360 digri waxay leeyihiin aragti habeen iyo maalin sidoo kale waxay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyagoo u gudbinaya sawirrada iyo muuqaalada xarunta kormeerka sawirka iyo duubista saacad walba.